waxay ka mid ahayd zawjaadka nabiga sala allahu calayhi wasalam ahna mid ka mid ah hooyooyinka mu'miniinta. waxay ku riyootay intaysan islaamin ka hor in magaalada madiina yathrib loo yaqaano xilligaas ee deganeed in uu ku soo wajahan yahay dayax iftiimaya aad u qurux badan. dayaxaasi ayaa nasiib wanaag waxay tiri wuxuu ku soo dhacay dhabteeda. waxaan la wadaagay zawjkayga oo markaasi ahaa yahuudi ahaa. waxaan ku dhahay waxaasan ku riyooday oo dayaxaas iftiimaya dhabteeda ku soo dhacayda. isla markii riyadu wuxuu u fasirtay in dayaxa uu soo galay magaalada madiina uu yahay nabiga sala allahu calayhi wasalam uuna guursan doono. xanaaq iyo maseer halkaasuu ka gaaray. wuxuu ku dhuftay dharbaaxa taasoo saameyn ku yeelatay jirkeeda qaybta wejiga ama daanka radia allahu canha wardaaha. qofkan ka sheekeynayna waa safiya bintu xuyey bin akhtab. waxay ahayd gabar aad u caqli badan, qurux badan, faahimad ah, kana soo jeeda bani nadiir, yahuudi magaalada bani nadiir ee deganaa madiinatu rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam. aabbaheed wuxuu ahaa mid ka mid a culimmadii reer bani israa'iil ee xilligaas lahaayeen. gabadhan waxay nasiib wanaag u xaqiiqo horiyadii ay ku riyootay oo waxaa dhacay reer bani nadiir oo tolkii ka soo jeeday iyo asxaabtii rasuulka in isku dhaceen, kadibna bani nadiir iyo yahuudi laga guulaystay. waxay ka mid noqotay addoommadii lasoo qafaashtay ee u soo gacangaray asxaabta rasuulka sala allahu calayhi wasalam. waxay nasiib u yeelatay inay ka mid noqota zawjaadkii rasuulka. asxaabtu waxay dhaheen hadduu nebiga sala allahu calayhi wasalam uu aroos u dhigo oo ay xijaab u geliyo, waxaan ku dareynaa inay tahay xor inuu ku guursaday, gabadhaas aysan addoon ahayn. 3 maalin ayaa waxaa la dhigay dirimihii, waxaan lagu tuuray timirtii si xafladdii loo muujiyay arooskeeda radia allahu canha wardaaha. markii u aqalgashay nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ugu sheekaystay qisadii ku riyootay ee ugu sheekaystay ninkeeda xilligii ninkaasu ahaa yahuudi ahaa, asagana lagu dilay dagaalkii khaybar. aabbaheedna waxaa lagu dilay dagaalkii bani nadiir ee u dambeeyey reer bani nadiir loogu guulaystay yahuuddaas. waxay u sheegtay nebiga sala allahu calayhi wasalam qisadaas cajiibka, waxayna dhahday waxaan ku faraxsanahay in maanta riyadii aan ku riyooday ay ii dhowowday aan ka mid noqday hooyooyinkii mu'miniinta. safiya bintu xuyey bin akhtab radia allahu canha wardaaha waxay ka mid ahayd halka zawja oo nebiga sala allahu calayhi wasalam uu guursaday aanan ka soo jeedin qabiilka quraysh. waxay ka soo jeeday qabiilka la oran jiray yahuudi bani nadiir. asalna waxay ku abtirsanaysaa nebiga haaruun calayhi salaam. kitaabka tirmidi waxaa ku sugan in mid ka mid ah zawjaadka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ku dhahday tan yahuudiyadda miya ayadoo maseer ka wado. markaasaa loo sheegay nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku dhahay haddii saas ku dhahday waxaad ogaataa in uu waalidkaada hore uu ahaa oo aabbaha hore uu ahaa haaruun calayhi salaam, nebi haaruun nebi, adeerkaa nebi muuse oo nebi ahaa, nebina ah hoos joogda. hadda maxaa ka sharaf badan ka wanaagsan in aad ka mid noqotid sharaf weyn hooyooyinka mu'miniinta, zawjatu rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam. safiya bintu xuyey bin akhtab ayay ahayd qofka aan hadda ka sheekeynayna. waxay dhimatay 12 hijriyada. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in gabdhaha mu'minaadka ay u noqota qudwaat fi lxayaat, ummahaatu lmu'miniin qudwaatii fi lxayaa, qudwaatii fi lcafaaf. waxaa saas odhan doona gabadha muslimadda kuna faani doonta hooyooyinkii mu'miniinta. haddaba intay ka raacaysaa gabadha muslimadda? waxay ka raacaysaa caqliga, kartida, fahamka iyo sidai wax maamuli doonta ay u maamuli jirtay. waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala gabadh kastoo muslimada inay akhristo taariikhda islaamka, gaar ahaan hooyooyinka mu'miniinta.